shirka baarlamaanada Afrika oo la qabto sanad walba 4 jeer oo laba ka mid ah looga hadlo arrimaha horumarinta qaaradda Afrika iyo siyaasadda ayaa waxa uu ka furmay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaana ka qayb galay madaxweynayaal uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dalka Mozambique madaxweyne ku-xigeenka dalka Sierra Leone iyo saddex gudoomiye baarlamaan uu ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti wasiir ka socday Koonfur Afrika iyo Gambia gudoomiyaha baarlamaanka Carabta gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti Maxamed Cali Xumud oo ka mid ahaa madaxdii khudbadda ka jeedisay shirka furitaankiisa oo ajendahiisa ugu weyn ahaa ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo garabsiinta haweenka ayaa sheegay in dastuurka dalka Djibouti uu ku salaysan yahay labadaasi qodob oo muhiim u ah shirka baarlamaanada Afrika. Au même titre que les hommes, les femmes disposent aussi du droit de propriété. Elles peuvent acquérir des droits fonciers. Celles désireuses de devenir xildhibaan Cabdi Xukun oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya kana qayb gala shirka baarlamaanka Afrika ayaa la hadlay saxaafadda markii uu shirka soo idlaaday wuxuuna ka warbixiyay in mudnaanta koowaad sanadkan la siinayo Soomaaliya waxa moodaa marka Afrika isu timaado inay mowduuc adag oo maarata nin walba uu soo hadal ay tahay waxaan xusinoonahay ugu darin dadka maanta halka yimid gudoomiyaha baarlamaanka Carabta oo isaguna marti ah oo asagana siiyay warka isaguna aad buu Soomaaliya uga hadlay kulankan baarlamaanka Ban Afrika oo ah kalfadigii afaraad kulankiisii labaad ayaa waxaa lagu dhaariyay ku dhawaad 50 xildhibaan oo bedelayay kuraas ay baneeyeen xildhibaano ka yimid wadamadooda waxaana ka mid ahaa xildhibaanadii la dhaariyay xildhibaan Bilow Keera oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dalka Kenya iyo xildhibaanad Saharla Cabdullaahi oo ka mid ah mudanayaasha dalka Itoobiya oo labadooduba ah Soomaali kulankan oo Soomaaliya uga duwan kulamadii hore ayaa waxaa la qabtay doorasho lagu dooranayay gudoomiyaha guddi goboleedka bariga Afrika oo ay ku tartamayeen xildhibaan Cabdi Xukun iyo xildhibaanad ka socotay dalka Itoobiya waxaana ku guuleystay kursigaasi Soomaaliya xildhibaan Cabdi Xukun oo ku guuleystay ayaa ka warbixiyay guushiisa iyo qaabkee u dhacday doorashada arinta ayada ahayd 36 xildhibaan baa gobolka fadhida codeysay wadamada fadhiyana waxay ahaayeen ka kala yimaadeen kooyo 10 wadan 12 wadan meelahaas 36 كل أتنا هذا قبل إن شيء تمام بهالشيء وما هذا إلهي أنت أيضا وحوي كرسي عيار ما هو قدومي قبل كأفريقيا أفريقيا وحيوق بسنتا شن قبل شنتا قبل أنه قبل كم من قبل أفريقيا بري عيدروس عبد حسن تي في عالمية يونيفرسال حرمت برلمان كأفريقيا جوهانسبرغ